saadaraaddeed muddo 43 markay bilaabeen arrintiina loo ogolaaday Somali Youth Clubna gaadhay xubnaha dibadda oo waddanka ay markii dambe waxay u ekaatay in club waa hadda meel yar oo shirkolaha oo aan weyneyn in la weyneeyo oo laga dhigo wixii xisbi siyaasi ah SYL meeshii siidi ku tiil el baa laga dhigay Somali Youth League inay markaas noqotay rasmiyan xisbi siyaasi ah odayaal rag badan oo shaqayn jira markaasna ragga la oran karo waxbay wadi karaan ama hogaamin karaan oo dhalinyarada ah waxay intii muwaadiniinta ahayd oo shaqaynaysay ama Talyaani oo soo shaqeeyeen ama markaas Ingiriis oo shaqeeyeen ragga maalinta jiro hadda jamaacada maanta ka dhigmo raggaasi ahayd halka waxay ka fakareen oo ay halkan joogtay marka maadaama meeshii la yiri magaceeda hal weynayo xisbi siyaasina ha noqoto inay u baahan tahay ragga ugu la isleeyahay ugu aqoonta roon raggi maalintaas joogay rag badan oo Cabdullaahi Ciise kamid ahaa oo markaa ka shaqayn jiray beledweyne in shaqalka laga soo saaro halka la keeno oo ku xigsado General Secretary markaas joogay anigoo markaa jooga Elbour aniguna aan soo kacay dhowr nin oo kale hawl haysayna shaqalka inay sii daayaan ku tabaracaan inaan waxaa jira haddii loo shaqeeyo dowladdii waqtigan la teeray ama sideedaba siyaasadda ayaan iskeenayn in u shaqeeya xukuumad inuu ka ahaado xisbi siyaasi oo waddanka siyaasadiisii ama lid ku aaban nimanka maanta xalay markaa waxay ahayd waqtigii ugu horreysay ee idinku aad maqashaan in xisbi laga dhisay laga furay dalka xisbigu SYC-du wax iska jiray ahayd lana ogaaday lana ballaarshay oo 13kii xamar bay ku ballaarsheen degmooyinkii gaadhay gobolada tan siyaasay ahayd markii dambe qoladii halkan centraalka ay fakareen oo yiraahdeen meeshii maadaama aynu ka dhignay SYL inaan ballaarino raggana loo eego aqoontii iyo dhowrna laga maarmin ama dibadda u baxan inspector ahaan ama secretary general ama rag shaqeynay Axmed Xaaji Saleebaan baa kamid ah Cabdullaahi Ashigo xagga intii xamar joogto markaa siyaasiyiin iyo rag la mid ah shaqeynay 13 abow komitata centrale kulligood noo wada ahayn markii dambe kala soo noqlay ayaa la keenay dibadda markii ay saas la isku waafaqay waxa laga furfuruucdo oo dhan markii hore Soomaaliya kulligeed meel badan baan markaa waxaan dibadda aan baranjooyin ku yeelano ay kamid ahayd cadan kamid ahayd dhulka Soomaalida oo Ingiriis ku xukumi jiray halkan iyo barbarkan Kenya dibadda xataa reer England ruuxoodu calaamadii muujiyeen xisbigii waa ballaartay waa weynaaday magacabo yeeshay Soomaali dhalinyaradeedii badanaaba qaar wixii reer magaalo uma kala harin saasuu ku dhismay SYL magaca la yiraahdaa kuna gaaray intaadii ilaa dowladnimada laga gaaro awal adigoo maansan waxaa jirta in qof walba uu halkan ku meel ka soo qaatay ama qayb uu kaga jiray haddaba adiga qaybta halkan kaaga aadanayd maxay ahayd ama waxyaabihii aad markaa ku qaybsanayd wallaahi anigu waxaan ahaa qoladii dibadda looga yeeray banaanatan magaalooyinka dibadda jira saan sheegahayay dhowrnan aanu ahayn ragga kale xamar bay joogeen waxaan hadda ka xasuustaa raggii dibadda looga yeeray oo lagama maarmo inay ku soo biiraan central committee aniga Cabdullaahi Ciise Cabdullaahi Badooni joogaan Elmur baan jooga aniga taydu khaas ahaan 25 bay ahaayeen nimanka komitata centrale la yiraahdo central committee waa idaatul ulya oo dhexda marka ragna wuxuu ahaa ragga shaqeeya xafiiska jooga ragna wuxuu ahaa muwaadiniin iska ah oo hamiinka la imaanaya yimaada ragna wuxuu ahaa ragga dibadda loo rabo inay tagaan oo hawlaha
dibadda laga qabanayo waddanka ama gudihiisa ama dibadda loo dira marka shardi waxaa ninkaas inuu ka madax bannaan yahay oo difnimo aan leegada ahayn oo aan shuqulkooda dowlaama nin uusan ahayn aniga tii aan ahaa idaarat alculya aan ka mid ahaa maaha waxaa ii qaas ahaa inaan ahaa special inspector oo bannaanada ragga loo diro aan ahaa matalan waddanka gudihiisa waxaan tegay ilaa halkaan ka baxo dhabaha kan dheero ilaa Boosaaso taga district walbaba Soomaalida aan la hadlo liigu wuxuu yahay waxa leegada ula jeedo hadallada ay faafinayaan dadka ama gaalada ama xoogaa iska jecelaa iyagoo Soomaaliya iska ahaadeen ama aan laba ahayn Soomaali inay dowladnimo iyo waxa ay raaga ay ku jiro anu ka dhacsiiyay aniga iyo nin la oran jiray Allah oo naxariista hadda dhintay Sugulle Maxamed la oran jiray waa inaad aadaan Shabeelle iyo Bari Mudug iyo Nugaal iyo Bari waa safarkii igu horreeyay aad iyo aad baan waxaan uga helay natiijo fiican dadkiina dhacsiinay inuu yahay leegadii oo markaa aan dadku u fahmayn gaaladii oo lacag badan wadateen hoos fooreysay wadankuna aan xusan qowmiyaduna ku yaray lacaguna meeshii soo gashay markii ku xigtay waxaa naloo diray arligan region Ogaadeniya la oran jiro chairmankii presidentaha Maxamed Allah oo naxariista Maxamed Xuseen baan la socday dhowr baan ahayn aan ka mid ahay wadneer iyo qabridahro iyo qaas nimanka odayaasha salaadiinta Soomaalida in lala hadlo aan ka xasuustay hadalowna dhex marayo markii dambe si fiican dadkii iyo dalkii oo xoga taray orodila ka mid ahaayo hataa neeyib waxaad rabtaan dadka iyaga inaad ka dhigtaan leego oo la tagtaan maya dadku waa sii fiicnaanayaan waxaan ogeysiinaynaa inay Soomaali yihiin waaba yihiin waxaan beenaynaa ma jiraan taasna faa'iido weyn bay ahayd safarkaasna waan ku jiray tii xigtay waxay ahayd inuu jigjiga la xiray xisbigii leegada oo inta xira la yiri ay diideen ingiriiska iyo maxaa waxay ku heshay ilaa jigjiga reserve area in loo dhiibaa dhulka awal ingiriis baa hay dagaalkii markuu dhammaaday waqtiga goormuu ahaa markaa waxay 3 iyo waxay ahayd 6 iyo 40 ilaa 7 in loo dhiibo oo lagu wareejiyo Ethiopia qoladii xagga joogtay oo leegada ahayd way diideen ingiriiskina hadda niman la soo amray ahayn saraakiil waxay ilaa waxay noqotay xisbigii iyo qoladii xukuumadda haysay meeshii inay wareejintii dhibaato inay noqoto amxaaradii waxay yiraahdeen iyadoo leego noosha calankii bayna ka taagteen oo daarta u suran aduu London baa la gaartay amarka waxnada komitata central xamar oo SYL inay wafdi dirto oo meeshii tagto oo dhiiga baajis anaga nin waa naloo ka dilay nin gaalwaad nin waa dilay meeshii dhiig baa ka dhacay rag waa la xirxiray dhaawac baa dhacay halkaanu ka tagna group anaga hada tanida intii Ustaad Cusmaan baa ka mid ahaa ladanahan hadda jooga ka mid ah rag qaar oo dhintay Xasan Beela ka mid ahaa Ahmed Cadaawa ka mid ahaa rag iyaga meeshii Sheekh Maxamed ninka la yiraahdo Sheekh Maxamed awaad oo taban Sheekh Maxamed ka mid ahaa rag fiican oo kontata central ama inspectorial ahaa meeshii loo diray meeshii hadii waxaan noqotay ingiriiskii leegadii inuu yiri meeshii khasab bay aniga u taanaan diiba mana hayn karo waan leedin leenahay inaad meesha ka insaxaabtaan oo meel kale dalkan annagu aan hayno oo dad Soomaaliyeed la oran jiray meel ka doontaan baad ka dhigi karaan laakiin hadda meeshii qoladii amxaarada aan goortay arkeen leegadii inay meesha ka dhaqaaq weyday waxay yiraahdeen ingiriisi soo gali minayda xaraka leega jigjiga ku jirta bay ugu qortay saasoo ilaa aad iyo aad arrintii aad u weynaatay waxay noqotay ingiriiskii inay soo diraan rag annaga leegada in lala hadlaa markii dambe haddaan ingiriiskana meesha ka xoogna aan ku qabsan karin waxay noqotay hadii calankii kaliya ahaan dejinay maahe
xamaasadii qoomiyaha iyo leeganimadii waa ku hartay waddankii sidii u ah taasuna mid weyn bay ahaydoo kadib raggii wixii camal hayay oo muwadifiinta waa soo noqdeen anigu waxaan u gudbay shishay waxaa la yidhi ilaa harar iyo dirir dhaba iyo jabuuti iyo cadan soo mar wafdi ahaan oo qoladii balleegada ahaydo saasa maxaaladii xataa ninkii sekreteerka noo ahaa oo joogay meesha layaha dirir dhabe leegada iyagaa dilay tii kadib ahligeedii way ka mamnuucday markaas kadib kahor waxaanu gaarnay SYL waa ogolaayeen waxay odhan jireen xisbi soomaali afrikaana weeyo markay arkeen nimanka independense iyo soomaalida gooni iyo istiqlaal iyo inay rabto diideen waxyadeen soomaaliha noo soo dhawin adugu raggii soomaalida ahaadoo ahliga joogay rag fiican oo dirir dhaba iyo jabuuti iyo cadan iyo aad oo raxmaxsannimo yani aad leedahay hataa waaba naga sii siteen ninkii dibadda jira raggaasoo dhan adugu intii 3 bilood baan soo wareegay halkan ka soo noqday natiijo weyn oo faa'iido wata oo qowmiye ah oo soomaalinimo isku xiraana yani iyadaasna kala soo noqday awale maxaa keenay fikradda ah in Soomaali ay yeelato calan waqtigeesa ahayd waqtiga fikraddu waxay ahayd markii Soomaali wasaayada loo dhiibay United Nations talyaanigiina la yiri 10 sano hayo arrimihii waxaa ku jiray oo ka mid ahaa in calankana lagu daro oo Soomaali calan qaadisooceeda ay leedahay sunnad looga aqoonsado dawaa'ilka kale dabadeed 53 baa United Nations waxay yiraahdeen calankii waa in dhowr jeer ay talyaaniga xitayna waxoogaa ka dabacsan markaa kan markii ay keeneen baarlamaankii horeeyo kunsiga territorial la oran jiray misla tashriic waxa yaa la keenay in calankii Soomaalida laga hadlo oo Soomaalida calan ay leedahay markay isku raacdo kunsiga territorial markaas loo diro United Nations ratifikada inay yani loo ictiraafo calan wadan ahaan sovereignty dabadeed meeshii waxaa dhacay dadkii leega maahee waa dad talyaaniga iska wataa sideedaba horta taas waa aan ku cadaynayaa nin kastoo xataa yidhaahda hoos baan ka dadka lacag baa la siinayaa leegadii haddee shilinkaas meensinaha oo shahriyaha iska qaada maahine lacag kaloo fundaa male wixii ay ku tabaracaan dadkaas muwadifiinta ah oo dadka shaqeeya iyo wixii uun gabdhahaas iyo odayaal Soomaali waxay ka soo geli jireen dabadeed sidii baa lagu heshiiyey annagu haddaanu leeganahay waxaa noo soo gashay kuntata jentra qolo walba oo xisbi ah saatii markaa joogtay hadday yaraato ama 7 ama 8 ahayd kuwii waaweynaa oo la ictiraafay inay keenaan qolo walba 3 nin ama 4 nin oo u joogto uga hadasha baarlamaankan Council Territorial Council ka loo jeedo leegadii marka waa keensadeen iyo koodi anigu waxaan ahaa markaas trade union organization personal staff waan u ahaa madaxan marka wixii shaqaalaha ahaa oo dhan oo Soomaali ahaa in kasta ahaadeen markay isu tageen nin la soo baxay la yiri aniga ila soo baxay marka anigu intaqbaan hawaalka ma aan ahayn dadka la soo socdo leegado 3 nin bay keenaysaa 3 baa laga baxaya Afrikaanku 6 nin bay keenaysaa 3 baa laga baxaya adoo xis walba intuu keena bar yaa la qaadanaya iyagu dawladda markaas joogto talyaaniga unaduna waa deekeys waa la joogno 3 waxa joogay majliska marka anigu saasan ku galay meeshii hadii la calanka laga hadlo maalintii calanka laga hadlayay oo arintii waxa la calankiina waa inaad keentaan xisbi walba fikradiisa sida ay la tahay qolo walba
xisbigii ay ku ahayd xisbi siyaasi waxay soo bandhigtay koodii iyagoo wata qolaba nooc yahay dabcan syl keedii oo karaawilkii iyo xidigtii quruxda badnaa iyo meeshii keentay anigu maxamed cawaale ahaan waxaan samaystay calan gooni ah oo cawaale aan kaa dhexgale shirka markaa ma idinku gooni idiin ahaa mase cid kale ay jirtay oo markaa ku jirtay shirka oo ay dood ka dhacday oo markaa ay ka baxday shirka amaba ay marka hore ku jireen may shirkaba waxaa la yidhi waa in calankii lasoo hindisaa waa la dhowraya waqti baa nala siiyey waqtigaas kadib qolo walbayba waxaa laydinka united nation baa soo dirtay adeeg waxay yidhaahdeen waa kan ragga u joogay war soomaaliya waa in calankii ay isku raacaan oo ay gartaan saasaa naloo sheegay annagii baa marka nala yidhi keena calan annaga calankii anigu aan keenay wuxuu ahaa calan anigu aan nima ila lahayn taas waa aan caddaynayaa maxay inuu shakigu ka baxo ama dad ii hindisay ama rag igala mashaawirooday ama anigu wax ii qarsoon baana waxaa jiray maalintii berrioo kale la fariisanahayay maalan inaan anigu central committee baan ka mid ah committee central dalalega inaan intago aan idhi calankaasaan wataa anigu waa aniga hadda shaqaalaha lama fadhiisto leegada meel gooni aan fadhiistaayo leegadan inta barotaliyan balaayo oo dhan oo si ilxun baa lagu fiiriya waayahay baa layidhi allah kugu barakay calanku saasaan anigu meesha haddii wax badan la hadlahayo laga munaaqashada intaan hadalkii la bilaabin taas waan ka soo dhaafee yaan waxaan idhi oo la yidhi meeshaan maanta waxaa laga hadlahayaa ninkii jermanka markuu furay calankii waddankan calan u ahaan laha waxaana goynaya nimankiina halkaan fadhiyo tashiiciga laydin yidhaahdo consilia territorial waddanka marka mucaabtiisii ah saas daraaddeed baa maanta shirkan waxaanu ku furaynaa calankii daraaddeed intaas markuu yidhi oo calamo badan la keenay anigu ma hadlin waa u dambeeya nin hadla waxaan idhi mr jerman anigu waxaan rabaa inka ra-iiska meesha ka ah intaan laga hadlin waanaan dibadda halga munaashaboon waxaan codsanayaa in la ii geliyo waa proposal anigu aan leeyahay maxamed cawaalaha waxaa nagu jira meeshaan arkayaa councilka 10 nin oo aan soomaali ah 4 waa talyaani 4 waa carab 2 waa hindi bakistan oo marka iyagu maxay ka qabanayaan meesha waxay ka qabanayaan waa economic operators dalkay degan yihiin xoolaha iyaga haysta talyaanigoodii baa u yimid haddii waaba raggal rabaaba inuu meeshoo dhanba ka muuqdaan oo qolatan xataa brotalianka nimanka lacagta wax ka dhiibaya ka mid wey maxay xisbiga ay jira dab wato halkan syl marka waxaa la yidhi meeshii maadaama hadda ay tahay loo dhiibay un administratione fiduciario waa dadka dalka jooga talyaaniga marka waxay ku dareen 10 ajnabiga operator ama beerihii dukaamadii maqaayadihii industriyariyaha iyaga ale soomaali waxay haysata lama arko ariga qoyaa iska raba inay waddanka dowlad ka dhigaan hase ahaatee nimankan waxaan kama ay hadli karaan calanka wixii kale oo la keeno laa baas maadaama ay u dhalan dalka see ninka may adigu igalama hadli kardhid baana waxaa igala hadli karaa councilka waa ay joogaan soomaalidii weeye waxaan rabaa wood in la ii geliya wood baa la ii geliyey majority baan ka aad iyo aad baa soomaalida ugu farxad hadalkaas intii aan soomaali ahayn meesha ka baxday soomaali khaasa maca jeermaankii noo joogayno waxaan idhi nin soomaali aan ka dhiganayna ninkii ragga u fulweyna una mudnaa meesha joogay yaa aan ku dara proposalkayga isagoo jeerman taas faa'iido weyn oo dadkii aad u saamaysay qoomi ahaan kii laga hadlay oo geedii lagu raabo qolo walba teedu la soo baxday iskuna daalay baan markii anigu waxaan idhi jermanka ahaa mr jerman anigu calan baan wadaa calankan hadda aan wadana ma aha calan xisbi iyo qolo iyo nin gooniya iyo midna waa calan soomaaliya waxaan ka codsanayaa odayaasha sheedan hadalkaa dhammeeyo
waa idin tusahaya inaan hadal layga dhabqin oo la ii daayaa dhabna la ii dhegaystaa micnaha markaad garataan saad doontaan laakiin marka hore i dhegaysta qolo meesha joogtaa yidhi soo bixi naga daaya hadalkaaga oo dibadda u soo saar halkaanu iigu jiray shaarka hoostiisa ah shaarkaa ku yacan qabay dibaddaan u soo saaray wuxuu ahaa horta ballac iyo dhir way isla ekaa qadraacta la yihahdo oo isla ekaana 40 centimitr 40 centimitr oo qarqad cad buluug ah dhexdana qarqad buluug kulligeeda laakiin dhexda xidig cad oo shingeys ah ayay ku samaysan tahay aan ku soo qarqaan loola jeeday markaan u micneeyey raggii meesha joogayna badan ahaantii ay ila raaceen oo iga raalli noqdeen iguna sacbiyeen markaan uga sheekeeyey innagu haddaynu soomaalinaha guud ahaan isku mid baynuna haase 5 gabaloo la qaybiyey annagu ma aynan qaybin laakiin ay qaybsadeen nimanka isticmaalka yaa jiro mid waxaa faransa mid xaggaan iyo brit somaliland mid wuxuu jira xaggan iyo ogaadeen mid xagga shan koonfurkaan iyo NFD iyo tan oo talyaaniga xukumaya innagu waynu isaguna haddaynu leeganahay haddaynu soomaali nahay waxaynu nahay 5taas gobol mana 5 goboloo haddii ogay dadka 4 adinimada ka ay tahay 5taan xidigtu waa soomaali guud ahaan 5taan geesna waa 5 gobol oo ay soomaalidu tahay caddaanku waa nabadgelyo wixii cad khayr baa loo nigeystaa gabayo iyo mahmaha ayaa ku jira caddaanku waa nabad waddan nabadeed in ahaadi barwa buluuggaan ay ku dhixi jirto haddii waad ogtiinoo 2,000 oo waxaynu leenahay badalina ku wareegsan iyo buuraba intoo soomaali waxaa la yidhaahdaa weli waa cagaaranta saxarana maahna disaarta ma lihin inagoo dhan micnaheennii wuxuu ku dhan yahay 5taas gees iyo xidigtaas cada buluuga ku dhex jirto midna male xisbi ma laha aniga igu khaasa anagii sohinisay ninkii ugu daraa leegada ama kontray ahaan jirayba wuxuu isku dara sacab iyo cawaara nolow maxamed cusmaan baa loo maxamed sheekh cusmaan edmond baa loo lama kala harin wuxuu yar maahay intii kale meeshaasaa la isku raacay calankan inuu calanka soomaaliyay waxaa dhacay oo ka dambeeyey guushaas markay dhacday qoladii talyaaniga ahayd oo meesha markaa haysay aad bay uga xumaatay arrintii waxay raadiyeen si calankaas la isku raacay ay usan u noqon kii wayba ay soo hindisiin baa jira maala waxaa jiray xisbi keenay tricolore 3dii talyaaniga ahayd aan saa isugu xigin laakiin ay isku qaldeen ay kala bedeleen laakiin aad arkaysa ay tahay 3dii cagaarkii iyo caddaankii iyo gudubkii dib ay isku noqdo waxba la waayo waxay heleen markii dambe oo la ii yeeray aniga khaas ahaan iyadaan shirkii ugu soo celin ninkii noo ahaa chairmanka oo territorial councilka Dr. Gasbari oo yiri very sorry congratulations aan waxaa samaysay laakiin waxaan ka xumahay in gelin maxaa jira sida aad ogtahay calan qola leedahay qolada kale lama qaadan karto adduunku saas weeye marka wuxuu jeedaa xidigta tan wuxuu ku qaldahayay unione africana meesha Belgium halkan Congo yaa wuxuu lahaa dhowr region marka waxay ka dhigeen sidii dowlad overseas oo dibadda ah tiibaa waxay lahayd exactly calanka iyagoo kale xidigtu laakiin dahabi tahay هروبي معنا يعني شنت الجيس بيلهاي عالم كوفا وعجارها كايو كل بلوها لكن أي شغلتها فيما مركز وحى على يدي تاسع شتى وحى المي كما ينام في سنة تاير وعدة تاسسه وأنا وهاي باي وحنا
tahay minskeeda diblokoto kulli adduunka oo dhan caalamada maanta jira ama ha ahaadeen taxta wadaaya ama ha ahaadeen dowlado mustaqil ah calankaad sheegaysaan waxaan ogahay waa midkaan unit congo belgium waa tiisuse waa dahabi tahaydana waa cadda adigu arrintii dib baa loogu noqday in indhaay kaba waa markii xoogaa waa way suulaagtaado waa lagu qaldami karaa maya markii xoogaa taa aan ku adkaystay bay faraha ka qaadeen calankii sidaas ayaa lagu ogolaaday arrado keliga adow uradi adcee tasiri daaxan noqoye muddo dheerna kusoo jiray halgan soona arkay dhibaato gumaysi maxaad kula talin lahayd dhallanta maanta jirta wallaahi haddee wuxuu yidhi nin soomaaliya maahmaahay farasigu macaan yahay ninkii meelku maray baa ogub waxay la tahay gudnimada iyo waddankaaga ha lagu xukumo qaraarka ay leedahay annaga aan og waxay tahay hase ahaatee waa u dhalasho oo ninku mar hadduu wadaninimo gasho khaas hadduu dhallinyaro yahay waxaad moodaa gees inuusan dhimanayn inuusan gaajoonayn inuusan baqayn waxaanba anigu ogaaday baqdintu ninka siniga wixii soddonka ka dambeeya gashaa wixii ka horeeya waxaad moodaa inuu geesi iska yahay nafta hore ah anigu waxay la tahay inaan waddanka nin kasta fardi kasta meesha kaga habboon waajib bay ku tahay sida faraa'isha ilaahay nagu leeyahay waddan xubbul waddan ma aha wax saaran